baraka takaaful insurance waa shirkad caymis oo waafaqsan shareecada islaamka lana mid ah shirkadaha caymiska ee caalamiga ah tan iyo markii la asaasay sanadkii 2018 waxaan ku guulaysanay inaan noqono hogaamiye ku takhasusay bixinta caymis wadajir ah oo hufan isla markaana la jaanqaadaya qiyamka bulshada Soomaaliyeed hiigsigeennu waa inaan noqono hormuudka maareynta halista iyo ilaalinta annagoo abuurayna nolol maalinle ah oo himiladeennuna waa inaan siino bulshada adeegyo tayo sare leh annagoo ku shaqaynayna qiimayn adag iyo ballanqaad baraka takaaful insurance waxay bixisaa adeegyo kala duwan oo si gaar ah loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed in ka badan 40 kun oo macaamiil ah ayaa sanad kasta ka faa'iideysta adeegyada caymiska ah ee shirkadda adeegyada caymiska ah ee bulshada gaarsiina waxaa ka mid ah 1 caymiska caafimaadka dadweynaha waa caymis caafimaad oo jaban oo qof walba uu heli karo 2 caymiska abaaraha 3 caymiska xoolaha sanad walba in ka badan 22 kun oo qof oo Soomaali ah ayaa ka faa'iideysta adeeggan 4 caymiska guryaha iyo hantida ilaalin buuxda oo laga heli karo khasaaraha lama filaanka ah 5 caymiska gaadiidka hubinta in gaadiidkaaga uu si badbaado leh u sii shaqeeyo 6 caymiska ganacsiga iyo badda ilaalinta badeecooyinka iyo ganacsiyada inta ay soo socdaalayaan 7 caymiska shilalka shakhsiga ah taageero lagu bixiyo khasaaraha shakhsiyeed ee lama filaanka ah adeegyadan caymiska waxaa loogu talagalay inay noqdaan kuwo lagu kalsoonaan karo la heli karo oo si fudud loo fahmi karo waxay u ogolaanaysaa macaamiisha inay helaan damaanad buuxda oo ku habboon xaaladooda dhaqaale iyo bulsho sanadka khibradda iyo guulaha sanadka 2024 wuxuu ahaa mid u gaar ah baraka takaaful insurance oo noqonaysa sanadkii khibradda iyo guulaha waaweyn sanadkaas waxaan xaqiijinay 1 hirgelinta caymiska caafimaadka dadweynaha baraka waxay ahayd shirkaddii ugu horreysay ee Soomaaliya ka bilowda caymiska caafimaadka dadweynaha taasoo bulshada u fududeysay helitaanka daryeel caafimaad oo tayo sare leh adeeggan waxaa la hirgeliyay iyadoo la tixgelinayo hadafka caalamiga ah ee lagu gaarayo Universal Health Coverage UHC marka la gaaro sanadka 2030 adeegga wuxuu daryeel siinayaa bukaan socodka bukaan jiifka iyo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka iyadoo leh shabakad ka kooban 143 isbitaal gudaha ah iyo iskaashiyo caalami ah oo ay la leedahay isbitaallo ku yaala dalalka Turkiga Malaysia iyo Hindiya guusha caymiska xoolaha ee baraka wuxuu ahaa adeeg si gaar ah loogu talagalay xoolo dhaqatada Soomaaliyeed sanadkii 2024 waxaa adeegan ka faa'iideystay in ka badan 20 kun oo qof oo ku nool gobollada fogfog ee dalka kuwaas oo noloshooda ku tiirsan tahay xoolaha waxay yareysay khasaaraha dhaqaale ee ka dhasha cudurrada xoolaha iyo abaaraha waxay taageertay beeralayda iyo xoolo dhaqatada si ay u sii wataan noloshooda iyadoo aan saameyn weyn ka soo gaarin xaaladaha aan la saadaalin karin abaalmarinta shirkadda ugu fiican ee 2024 sanadkii 2024 baraka takaaful insurance waxay ku guuleysatay abaalmarinta shirkadda ugu fiican ee bixisa adeegyada caymiska abaalmarintan waxaa lagu aqoonsaday tayada adeegyada shirkadda iyo siday u heelan tahay inay bulshada siiso xalal hufan oo wax ku ool ah waxaan si dhow iskaashi aan ula leenahay shirkadaha caymiska ee ugu waaweyn adduunka sida Africa RE, Swiss RE iyo ZRE iskaashiyadan waxay muhiim u yihiin hubinta in macaamiishu helaan adeegyo lagu kalsoonaan karo dhinaca kale waxaan xiriir dhow la leenahay bangiyada iyo hay'adaha maxalliga ah ganacsatada yaryar isbitaallada dalka iyo hay'adaha caalamiga ah ee Soomaaliya ka howlgala waxaan si dhow ula shaqeynaa dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan bangiga dhexe oo mas'uul ka ah sharci dejinta caymiska dalka adeegyadeena waxaa ka faa'iideysta hay'adaha dawliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee dalka ka shaqeeya waxaan ku shaqeynaa nidaam casri ah oo fududeynaya in macaamiishu ay helaan adeeg degdeg ah shirkadda caymiska baraka takaaful waxay ku tahay saaxiib lagu kalsoonaan karo oo garab taagan noloshaada iyo qoyskaagaba ku soo biir baraka maanta si aad u hesho nolol xasiloon iyo caymis la isku halayn karo